هيم وما تنتهي صاحبي بازي مركو كواد وحربا إنه مهنقو إن GSD هوش wanaagsan ay qabteen runtii waxay ahayd 9 maalmood oo aad iyo aad u heer sareysa ana maalin walba waan imanayay wajiib badan waxaan jeedaa maalin walba halkan joogay ama inta badan ba joogay barnaamij qurux badan aan qabsoomay جواهر iyo baasi ina waxaan sheegay barnaamijkan fadlan sanad la han noqdo sanad walba bandhig noocan oo kale la sameeyo han noqdo waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta safaaradda walaalkay Tayyib iyo walaalkay Cabdimuuse dhammaan waa idin wada salaamayaa waxaan salaan gaar ah oo kale aan salaamayaa Asoid oo runtii shaqadan fantastic ah soo diyaariyay dhalinyaradaas in la isku keeno oo la tababaro oo ay uriyaan waxaan arkayna wax yareer maaha marka waa ku amaanan yihiin aan malaynayaa hadda kor waxa soo bandhigteen xarunta akademiyada ayaa soo bandhigteen madax mas'uuliyiin badan joogtay aad u wanaagsanay barigaas safiirka Talyaaniga Axmed jooga kamid ah dadkii hataa aan malaynayaa marka idinka waa ku mahadsantihiin hay'adan aniga aan wakiilka ka ahay akademiyada gobolka afka Soomaaliga gobolka markii la gobolada Soomaaliya maaha waa gobolka Geeska Afrika maadaama hay'adda midowga Afrika u qaabilsan afafka aklana la yiraahdaa ay ku dartay afka Soomaaliga afafka ugu muhiimsan sida kale aan u yiraahdaan waxa muhiimada waxa keenay afafka xuduudaha ka gudba ayaa la tiriyay marka 12 af ee xuduudaha ka gudba Ethiopia oo dariskeena ah 100 milyan oo qofood ah afka Amhariga kuma jiro Soomaalida iska 20 milyan iyo meelahaas oo kale ah afkeedu ku jira maxay yeelay Soomaaliya waxa loo hadlaa min تجورة كسبلاو جبوتي كسبلاو إلا يجاريسان لوكالنا في الصوماليين هو بعيسبة مركز أفك حدودها كوبا أيام هيري مركز على أساسي أفكان أكاديمية النيرادو أكاديمية كورات أفك الصوماليين على أساسي إني أهيليسو إني حبيسو إني توسيسو إني إيرجيسو أفك الصوماليين golaha qurbajoogta Soomaaliyeed isaga haddaan qalad sameeyo waxa Jawaahir ay sii doonto 3 tiiro ku taagay intaan ka waraayo sabiib loo asaasay ay kamid ahayd mid waa in Soomaalida qurbaha joogta oo hadda 2 milyan si cagacaynaysa siina badan doonaan oo laga yaabay waqti qaar in la gaaro inta gudaha jooga inta dibadda ay isla ekaadaan dalal badan oo noocaas oo kale taa jirta Talyaaniga kamid ah Talyaaniga waxa la yiraahdaa inta gudaha joogta iyo inta Talyaaniga asalkooda iyo dibadda joogta waa isku dheereeyeen safiirka Turkiga maalintii la furayay wuxuu noo sheegay inta milyan oo Turkishka ah oo qurbaha ku nool marka mid waa in maaragtay dadka gudaha dadka dibadda jooga inay caawinaan dalkoodii iyo dadkoodii sidii ku caawin lahaayeen midda labaadna wadamada ay ku nool yihiin sharaf iyo karaamo sidii ugu noolaan lahaayeen midda saddexaad waxa weeye identity haashaha qofka Soomaaliga oo la sugaayo dhalashadiisa la sugaayo taasoo de haddaan fiirinayna laakiin ka fikir 4 5 6 7 8 jiil oo soo socota dadka halkaan joogaya marka dadka sidee Soomaalinimadooda loo cadeyn karaa kow waxaa ka noqonaya marka afka waxa dadka identitygooda soo afka kamid marka GSD iyo akademiyada aga meesha ka mataan yihiin kala shaqeynayeen badan soo wada shaqeynayeen ka wada shaqeeyaan afka kamid ah marrabo inaan dheereeyo intaas rabaan ku soo qaabay marka aad iyo aad u mahadsantihiin wajii iyo Maxamed Ibrahim Xaaji oo baasi ayaga oo ka tirsan akademiyada laanta UK
way joogaan aad iyo aad mahadsantihiin soo dhawaada